بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha sharafta leh meel kasta aad joogtaan kulanti wanaagsan oo wacan. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu dembiyadeenna iyo dembiga waalidkeen uu dhaafo, isla markaana ilaahay subxaanahu watacaala uu caafiyo qof kastoo muslim oo dhibaataysan. ilaahay subxaanahu watacaala hamiga iyo kurbada uu ka qaado qof kastoo muslim oo kurbaysan. qof kastoo muraad lehna ilaahay subxaanahu watacaala muraadkiisa sidii khayr leh oo ugu sahlo. intaa kadib walaalayaal, maanta waa 31 Oktoobar, waa maalinta loo dabaaldego ciidda la yiraahdo Halloween. Halloween maqashay maxaad ka ogtahay? Halloween walaalayaal waxay ka soo jeedaa asal ahaan wadamada la yiraahdo Ireland iyo Scotland iyo Wales oo ahaan jiray dad mushrikiin ah. Kiristankii ka hor ayay u dabaaldegi jireen, isla markaana waxay aaminsanaayeen inay tahay sanadkooda cusub. waxay kaloo isla markaa xusi jireen oo aaminsanaayeen in habeenka 31 iyo mataqaanaa 1 November dhexdooda ay habeenkaas dadka dhintay ay soo baxaan. marka way ka baqi jireen, isla markaana sadaqa ay bixin jireen, wayna iska laaluushi jireen, waxayna bixin jireen cuntooyin, waxay daaran jireen nalal. ciidaas ama dhaqankaas waa la soo minguuriyey, isla markaana wuxuu ku darsamay oo mataqaanaa uu isku taariikh noqdeen markay gaalada ama kiristanka xusaan waxay ugu yeeraan awliyadooda ama dadka ay ku mataqaanaa ka barakaystaan oo culamadooda ah. marka magacii halkaas ayuu ka yimaaday. intaa waxaa kaga kusii dheer dadka shaydaanka caabuda ama dadkan shaydaanka caabuda hadda aan naqaano waxay aaminsan yihiin 31 Oktoobar inay tahay maalinta ugu baraka badan agtooda. maalinta noocaas ah maxay diinta islaamku ka qabtaa? diinta islaamku waxay ka qabtaa in qofku muslimka ah uu ilaashado dhaqankiisa iyo mabaadi'diisa. diinta islaamku walaalayaal waa diin ku dhisan tawxiid. ilaahay baad aaminsan tahay, laa ilaaha illa allah baad aaminsan tahay inuu ilaah keli yahay. sidee ugu dabaaldegi kartaa shirki iyo wax shaydaan ka soo horjeeda? haddaba arrintaas nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. ayaka ayuu ka mid yahay qofka qola isu ekeysiiya. waxaa nasiib darra in maanta la helay muslimiin badan oo arrintaas aan ku baraarugsanayn, isla markaana aan dhib u arkin inay mataqaanaa isku dhahaan ama iskugu tahniyadayaan mataqaanaa Halloweenka walaalayaal waa arrin ku cusub xataa qurbahan. isla markaana waxaad arkaysaa gaalo badan oo kuwa kiristanka dhabta u haysta way diidan yihiin oo waxay leeyihiin ciidan waa ciid shaydaan, shaqana kuma lahan kiristanka. waxaa intaa ku dheer inay noqotay ganacsi. shirkadaha Maraykanka iyo adduunka ayaa aada u buunbuunay una fangareeya. runtii waxaa nasiib darro ah inaad waddan muslimiin ah ama waddan islaam ah aad ku aragtid ayadoo lagu iibinayo waxyaalaha la isticmaala Halloweenka, bahladan la xirto, qolfoofta la iska dhigo, bocoradii wixii dhan la iska dhigayo. haddaba walaalkayga muslimka oo maxaa kula gudboon? waxaa kula gudboon inaad diintaada iyo dhaqankaada ilaashatid oo ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsatid, isla markaana aan caruurta la barin oo lagu tarbiyeynin inay u dabaaldegaan Halloween. waxaa dhici karta qofka inuu iska dhaadhiciyo arrintan waa iska caadi, caruurtaan uga farxadinaya. caruurtaada dhaqanka ay ku barbaaraan hadhowtii ayakana way sii gudbinayaan ilaa marka dambe ay caadi u noqoto. waxaa muhiim ah in ilaahay subxaanahu watacaala aan ka cabsano, isla markaana aan dhaqankeena iyo diinteena aan ilaashano. oo walaalkii naasir cadceed oo idin leh ilaahay subxaanahu watacaala ha idiin naxariisto, dembigiina ha dhaafo. isla markaana walaalahayga muslimka ahow meel kasta aad joogtaan wanaagga sii faafiya. xasuusnaada inaad laag saartaan pagekayga naasir cadceed, isla markaana aad soo booqataan rugteena YouTube-ka oo subscribe noo saartaan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi